mahadsan yahay oo Soomaali dhammaan meesha ku kulmiye marka waan idin salaame reer Gaaris waan idin salaame ilaa madaxda iyo dadka meesha fadhiyo waagayniga sharafta leh aad baan idin salaamahayaa marka buraanbur baan aniga horta ku hormarin hayaa hadalku ma hormarin rabi مساجد سو مساكين أروريو مساجد سو مساكين أروريو ماغا عساما لويلك مذيو وما سروان ما هاتسنتاي ماليني هذا قبيلك سوعي قيب سلام مقاو قبيلك سوعي قيب سلام مقاو قبيلك راسوعية قيب سلام ملاها وانا صار لهيلك نسم لها وقد سارك قدرني منك قاو سمري والناصر جنبك على قوة بسيقى مجيرو والناصر جنبك على قوة بسيقى مجيرو والناصر جنبك على قوة رمى مراي والناصر جنبك على قورة الممراي والناصر جنبك على قورة الممراي والناصر جنبك على قوي يا شكل مدعاي هذا صار لويلك نسم لها وين ما ناركن الله قبيل مرة من الله ما ناركن انت تاقلم حنا الرجل كما عولان كما عولا كما هيل كما كم maanta waxa meesha iskugu imaaday umada Ilaahay oo noo garbaysa lama rabo Soomaali Maxamed baas kugu imaatay meeshan laakiin umada meeshan waxa uga jeednay umadaas ay way ku mahadsan garab bayna siin hayaan dadkaan u jeedna maxay cowlaan iyo Awraaq iyo Cabdalla saddex waa inay meeshan ay isku garbayn haysaa u jeedna marka Naasir qabiil ma rabo qabiilna ma warrabnaa oo dhanba qabiil waan saarnabo magacayga waxaa la dhahaa ceeb la gaabay beesha Awraaq gabar ka socotaanahay oo ceeb la gaabay la dhaho ceeb Ibraahim dhaqane waxaa idin sheegayaa muslimow islaanow Awraaq oo cowlahanow waan salaamay dhamaantiis waxaan mahad u celinaynaa Madaxweynaha Naasir Joofle oo na casuumay oo anagoo qabiil aan lahayn isku kaan yeelay قاعد إسلام ماشي وتاريخ قبيل مكيرو هذا الناس قبيل مقرو وأويل صومالي وأويل مسلم جعل أمبوسكو كايري لكن مركا يكورا نقطو قال يا إسلام بكورا هو انكرمنا وحاندين شيئا يا قبليهم صومالي ماشي نسكو إماضي إلى الناصر كوراسي النهارت ما اسكو أغناهي ناصر جوبلي إلى كوراسي ما اسكو أغناهي ميلا قادم جوبل قادم جوبل جو قبله Awraaq iyo cowlaan qaasiyatan asaayib ay saarteen wiilasheenagi way dhamaadeen asaayib aan qaadnay ninna oo xildhibaan hela ma jiro maxaan rabaa inuu Naasir iska qabsigan inuu reebo inuu wiilasheena nala taqiyo inuu gabdhahaas ay qaadeen booqdo inuu iska qabsigan naga reebo la jecloon baa la isku qabsanayaa ay ma qabna annaga cowlahan iyo Awraaq iyo Cabdalla haddaan nahay laba isku aaba iyo isku hooyaale isku shaan ilaa waa la booqda cowlahan iyo Awraaq iyo Cabdalla booqashaan waynay asaayibaa qaadnay wiilasheena la jeclay isku haystaan annaga shufto ma qabno shufto waa ninka jidka taagan dadka dhaca waa ninka tukaamaha dhaca wiilasheena shufto ma aha waa la jecloon baa qaaday waxna soo booqdaan waynay inay mara walaaleeyaan Madaxweynaha Naasir Joofle aan ku soo qaadnay la ila qaaday قال ناصر وقديه قالين أصايب قالين ولا قاسية العولان يعوضا قصايب قالين وأرون توني وكان نبي ومسلمان هيا ناصر وقرا شقنا وقوتان ربنا هدو لك دايرا كيماي هدو قرصاك وانت كيماي من الشيء وحكا لقمت ولا وايي وحما إمانا ولا وايي waad mahadsantihiin sidaad u soo baxdeen
waxaan rabnaa maanta fadhigan inuu noqdo fadhigii qabiilka lagu duugay fadhigii lagu siyaasad markii la samaynayo qabiil baa lagu dadka siyaasad bay ku samaystaan qabiilka inaan siyaasad qabiil aan ka tagno oo aan samaysano madaxweyne anaga aan leenahay oo reer Gaaris oo dhan u dhaxeeya hataa Mukaambo Wateso Waluya Soomaali markii laga gudbo waana ku soconaa hiigsigaas oo 5 sano oo soo socota ninkuu Ilaahay gaarsiiyo la yiraahdo 5 sano si ma soo galay maantana yaan sugaynaa la yiraahdo rabnaa waxaan ka soo baxay oo ka imaaday beesha Cawdaq waad ogtihiin inaan geeri u taagnayn oo waligaan aanan soo isaagin meel cawlahan uu ku qabo bartad qabiilkii iyo wixii inaan meel ku gaari weynay baan ogaanay waxaan ogaanay dantaanada meeshaan ku gaaraynay inaan ka busnay yaan ku tashanay Naasir hadda karix muu soo isaagin 2 jeer oo kale u tartamay maalintuu dhashay iyo maantana aniga asaga isku meel baan joognay ani muuta gaarsiray baan asagana jariib ku dhashay waligay barsadiisa ma tagin waxaan ana saaw ka saayay waliba qaraabad meel ka siinay ana waxaan u tagay qabiil baa tushiga saarnaa qabiish tushiga saarnaa inuu waxba ii gali waayay yaan ogaaday waana dhigay Naasir nintan maanta gacanta taagtooy hadda Ilaahay ka baqaysiin galaal yaa looga laabanin intan iyo inta ku xigta hadda sawadin ku jiro uu qaadi ma sha Allah waxaan ka hadlayaa sidaan isku arursana oo wiilkan u garab istaagna inaan ooga shardi ooga dhignaayo garabkiisa taagnaa oo marna aan ka bixin kuurahana aan siinaa meeshan waan taaganahay waan tuuranahay laakiin inaan shaqeyno oo nin kasta intuu gacanta gurigiisa ka baxo kuuraha meesha uu ka ridayo meesha uu ka goosanayo meesha uu looga bedelayo la tagaan aad iigu muhiim igu aniga qabiilna hala tuuro dhulka lagu jiido qabiil waxba nooma taraayo aad baan salaama gabdhaha qiimaha badan waa in maad celinayaas beeshaydana waxaa waaye beesha Cawlaan dhamaanteena waxaan nahay Soomaali midowde waan salaam walaalayaal jafla juu garabkana Allah gala walaalayaal gabadha haday hadlaysa ee ka hadlaysay qabiilka arinteeda aad baan la qeyraanay aad baan u faraxnay walaalaashin waan salaam gabadhaasna way maasanta beesha Cawlaan ma jirto wax la dhaho beesha Cawlaan ma jirto Soomaali weyn baan iskaashana garab aan siina sida isku soo baxnay garbaha aan qabsana walaalayaal way salaamantiin waa bariya saxaba lama qariyo maanta waxaan u taaganahay midnimo Soomaaliyeed waxaan caalanka 5 bilood oo Soomaalida oo maanta taagan Garissa County waa guul soo galbatay Soomaali guusha ayada oo ay tahay ku socoto Naasir Joofle midnimada ayadana oo isaga maanta asaga ka shaqeeyay waxaan leenahay wiil markuu dhashaa waa loo alalaasa laakiin ninka gumi isku soo jeedana mar walba magaciisa uu jira guushayaale maanta Soomaalida yaa midee Joofle madaxaaga la raajiyo midabkiisa Allah wado maxaa waaya waxaa la yiri ninka boqorka ama midka caaqilka wuxuu ka hara warka hara lagu socdaa mooyaana boqorka hal mar la dhalaa 9 bilood la qaadaa marka la dhalo maxallada wiil baa dhashay magaca wiil buu taagay laakiin qariiradu waa qabato lama garan karo sama jirto okay 9 bilood buu ku dhashay Joofle maanta muxuu taagan yahay midnimo Soomaaliyeed laakiin hooyadiis markay dhalaysay aabi wuxuu yiri wiil baa ii dhashay yiri laakiin muxuu ka taliyay qariirada Soomaalinimo ka tantay 5 bilood oo Soomaalidu mideen maxaa rabnaa maanta inaan gacanta taagno Soomaaliya intaan gacanta taaga qariirada Soomaalinimo gacanta la taago Joofle meel buu naga daaray Allah mideeyo Naasir Joofle aan soo qaadnay maanta insha Allah waa ku guuleysanaynaa beeshaan ka socdana waa beesha Masarra aniga waxaan nahay Masarra Xabiibi Weeliyaal leedaha waxaan rabaa arintan Ilaaha nagu guuleysi Naasir kursiga waa ku fadhiyaa insha Allah inteena meeshaan ku kulannay alla ballantiisa qaada
ناصر جوفله وكفر يا كرسي إسرائيل حسين آدم عبد الله علينا حتى علمي آدم ولكن سيدنا جدوا خان كسعته ما فكر كيس أنا جاب فكر كيس قرب كيس أنا درجة هروان درجة هروان ترتب ونستقل أكيد داود أنا واصل جدوا جاب له بيرس جاب له جو ورقي ستاجنا ورقي ستاجنا كل ماشي وحاسكوكو إيماني وانوال بناصر جعيل كيسة مركا وحان ربنا ولا ليال إنا ناصر قادنا ومركن كسونا قشالين قبيل يقرن بان كتاقنا يعني لينا ومن مرة قارسة aan ku soo dhaweyno yaan rabaa duu ilaahay mar reegaaris waa qaran walaala qoys badayo qabiilnimada ma ogolin reegaaris waa qaran walaala qoys badayo qabiilnimada ma ogolin waxaan maanta qaadanay waa naasir jooflo gaarisa waa qaran walaala